السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مقال عصب مقال كان ما نتحن كقاعدة دونا سيد جدول كنا قطع الله وحويا وتيبس عن تريكس مركا وحب عن دونا تيبس أما حيل ضير روان وشيك دونا وكوف ضيين دونا الشقة هذا هيعرف بدنا كعاون دونا مركا انت هن 10 كبلابين هدي نجد عون في فيسبوك أما يوتيوب فضل نقول صبير فلو صار بيجك هدي نجد عون في يوتيوب نسبسكرايب جنالك مقال كان لايك صار سينو شير جري أو لو داعس حبت هذا زيارة كلو فربدني أيوة كفايدة marka tip number 1 waxa weeyaan ama tipka oo reeyaan qaadina waxa weeyaan marka aadimko kale logo design sameynayso imika hadii aan halkan painting-ka soo qaato si aan ugu tusaaleeyo marka waxa jirta maaldood waxaan sameeynaa caleen marka waxaan sameynayaa adigu shay caleentu eeg baan sameynayaa si marka aan ku tuso waxa aan doonayo in aan ku fahansiiyo marka halkan aan imanaya kadib saasaan leeyahay inta markaan sameeyo filka madow baan ka dhigayaa taasoo kale aan uga dhigay kadib imika waxa doonaysaa inaad intan isu keento ama meel aad u yar oo ka durugsanooda si fiican u arkeen oo kala aad soo dhaweysato kadib aad isku durkiso markaad isku durkinayso hadii aan tago direct selection toolkayga waan anchor point kan doorto aan sidan soo kaxeeyo waan hadana kan sidaas soo idhaahdo waan sida isugu soo dhadhawiyo waxay igu noqonaysaa kolba waxay igu noqon doontaa intaas ay idhaahdo inaan dib u durkiyo saa inta idhaahdo aan eego kolba soo noqday marka mar walba waxay noqonaysaa inaad zoom out idhaahdo oo aad soo eegato laakiin waxa jirta tip fudud baa jira oo aad ku eegan karto adigoo aan zoom out sameynin oo project-ka ku soo dhawi waxaad tagaysaa windows kadib new window baad soo furaysaa new window markaad tiraahdo waxaad arkaysaa waa isla project-gaygii oo laba window igu kala jira hadii aad arkayso waa untitled 2 iyo untitled 1 waxaan sameynayaa zoom out baan leeyahay saasoo kale aan isaga durkinayaa sida markaan isaga durkiyo waxaan sameynayaa hadana window baan tagayaa arrange baan tagayaa kadib waxaan dooranayaa tile baan dooranayaa tile marka ay dhahdo waxa weeyaan uu kala qaybin doona screen-kayga hadii aad saaraha arkaysa labadii project waxa la igu kala qaybiyay screen-kii maxaa illustrator-kii marka kan aan dooranaya intaan move tool-kayga tago hadii aan artboard ka imaado waan soo dhaweysan karaa kan intaan saa soo dhaweysto waan hand tool-kayga doorto saa soo dhaweysto ayaa waxaan sameynayaa imika in aan sidii aan doonay ka dhigto kan aan halkan keensado kadib aan saa intaan idhaahdo saan leeyahay halkan aan keenay kadib kan waa version-kayga yaraa kana wii soo dhawey kadib imika hadii aan move tool-kayga tago kan doorto waxaad arkaysaa xitaa selection-ka wii wada saarmaya waxaan tagayaa direct selection tool-kayga waxaan sameynayaa kan aan dooranayaa kadib saaraan leeyahay waxaan eeganayaa waxa weeyaan halka uu ku saxan yahay halka waxaan ka arkayaa isagoo yar halkan waxaan ka arkayaa isagoo weyn kadib maxaa ii sahlanaanaya inaan anigoon waxba zoom out oranin aan shaygaygii sidii aan doonayay aan ka dhigto imika kale anchor kan aan soo dooranay kadib saaraan leeyahay halkan waan kala socdaa hadii aad arkayso kadib hadana kan aan dooranayaa saasoo kale leeyahay imika kale kaasaan leeyahay hadana halkan aan imanaya kan aan dooranayaa anchor point-ka hoosaan dooranayaa garanaysaa hadana kan aan double click leeyahay imika kale kadib waxaan dooranayaa inaan path-kan sida u soo celiyo kadib saasoo kale idhaahdo saasoo kale aan leeyahay kadib check baa leeyahay imika waxaad arkaysaa version-kayga yaraan halkan aan ka arkayaa kii weynaan halkaas ka arkayaa taa markaa waa window cusub markaad soo furanaysaa doonayso inaad uu shaqadaada ku fududeeyo logo design-ka oo kale oo aad loogada intaad aad u soo dhaweysato aad anchor-iska yar ka saari karto halkana aad ka arki karto version-keedii oo yar qaabka ay noqotay inaad si sax ah ka dhigtay iyo in kale marka tip number 2 wuxuu noqonayaa waxa weeyaan waa rearranging artboards ama artboard-da marka aad doonayso inaad rearrange ku sameyso hadii aan kan iska xidho windows-kan waan file tago new tago halkan waxaad arkaysaa artboards-ka markaan Adobe Illustrator joogno waxaan gashan karnaa artboard fara badan marka imika waxaan gashay 13 artboard create baan leeyahay waxaad arkaysaa 13 artboard si grid ah oo qurux badan bay igu yaalaan markaad doonayso inaad artboards-kaaga aad bedesho arrangement-kooda iyo si isu garab yaalaan waxaad tagaysaa properties markaad timaado waxaad tagaysaa edit artboards hadii aad xagga sare arkayso edit artboards markaan doorto setting-ka loo soo saari doona halkan aad ku arkayso waa artboard options iyo rearrange all garanaysa marka rearrange all baad click leedahay halkan hadii aad ku arkayso waxay noogu yaalaan layout halkan waxay noogu yaalaan layout order marka hadii aan halkan tago imika waxa weeyaan waa by rows marka muxuu noqonayaa 4 row buu inoo noqonayaa oo isgarab yaala hadii aan imika halka ka dhigo imika kale 3 row aan okay idhaahdo waxaad arkaysaa artboard-keena waxa laga dhigay 3 row oo saan isu garab yaala hadii aad arkayso artboard-ka 13aad markii hore halkan hoose ayuu inoo yaalay oo markii hore waxa ay halkani 3 row waxa ay 4 row oo artboard-ka dheeraadkii halka hoose ayuu yaalay laakiin imika waxa 3 column baaban 4 column baaban jeeda
marka artboardka dheeraadka halkan oo siinoo yaalay laakiin imika waxa laga dhigay 3 row artboardka dheeraadkaana dhinacaas tagay haddii aan rearrange oo hadana tiraahdo oo aad halkan tagto waa one single row gebigeedaba hal row baa laga dhigay haddii aan imika okay dhahdo waxaad arkaysaa gebigoodiiba one single row baa laga dhigay qaabkaasi u dheeriyay 13 kiiba saas isku daba yaalaan haddii aad rearrange oo ku noqoto hadana waxaad ka dhigi kartaa one single column oo ah inaad gebigoodaba dherer u taxdo oo ay saa isu hoos yaalaan halkan aad iman kartaa imika haddii aan imaado columns oo kale waxaan ka dhigan karaa imika waxa weeyaan waa 13 artboard gebigooda waxaan ka dhigan karnaa 6 column kadib waxay noqon doonaan 6 column oo min laba isu hoos yaala iyo hal xabo gaar ah haddii aan okay dhahdo waxaad arkaysaa columnkii koobaad kii labaad kii saddexaad kii afraad kii shanaad kii lixaad 6 column oo laba isu hoos yaalo mid saddexaad ka koobaadna mid saddexaad hoos taalo kii dheeraadka ah marka kaasina waxa weeyaan markaad doonayso inaad artboardskaaga aad ku samayso arrangement aad ku sameeyno kadib exit baan leeyahay sideedaas la igu diin doonaa waan soo dhaweysanayaa qaabkan aan soo dhaweysanay marka tip number 3 waxa weeyaan waxaan ku qaadanaynaa qaabka aad default setting imika kala farta haddii aan tago halkan textkan click idhaahdo waxaad arkaysaa waxay dooran farta Myriad Pro la yiraahdo oo si default ugu setup gareysan Illustrator marka qaabka aad u bedelayso default photos waxa weeyaan inaad tagto character style waxa weeyaan marka character style marka doonayso inaad tagto waxaad tagaysaa window kadib waxaad imanaysaa type ayaad halkan imanaysaa kadib character style baad tagaysaa character style marka timaado kadib waxaad leedahay halka style cusub soo darso style kana dooranaysaa kadib waxaad tagaysaa saddexda lead waxaad tagaysaa character style option marka timaado waxaad tagaysaa basic character formats kadib halkan waxaad arkaysaa far nooguma jirto stylekeena kadib halkan waxaan dooranayaa inaan halka ku dhufto imko kale Gilroy baan markaa dooranayaa anigu farta Gilroy baan leeyahay kadib aan ku noqdo waliba oo aan soo set aan inta kalena ku soo daro marka inta haddaad tiraahdo waxa ka dhigantay inaad okay tiri uu ku save garanayaa halkan lightka extra bold baan ka dhiganayaa farta halka fontka muxuu ahaayay size-keedana waxaan ka dhiganayaa imko kale 150 kadib waxaan leeyahay okay markaan idhaahdo character style 2 ayaa la iigu save gareeyay kadib waxaan leeyahay waan iska soo xidhayaa haddii aan imika tago haddaan fartan iska delete gareeyo oo aan font soo doorto oo aan imika halka sare haddii aad arkayso default setting-kayga intaanan farba aanan click odhan aan qoraal qorin xagga sare waxaad ku arkaysaa waxay noogu taala Gilroy extra bold iyo 150 pt marka haddii aan click idhaahdo intii baa meesha soo gelaysa halkan waxaan ku qoray kanaya imko kale haddii aan Ramadaan ku qorto waxaad arkaysaa waa isla fartaydii extra bold weeyaan oo font weight-kiisa ma bedelayo marka qaabkaas aad u bedelaysaa default setting-ka saddexda tip baynu maanta qaadan doonaa fadlan haddii channelka cusub tahay subscribe noo saar casharkan like saar si uu arday kale fara badan u gaadho ay uga faa'iideysto siina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada wixii faallaa ee aad qabtana commentiga hoose ku reeb insha Allah iyo wixii su'aala aad iyo aad baa mahadsantahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh